السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalaha waan idin salaamaya meel kastoo dunida daafeeda kaga sugan tihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya idin salaamaya dhammaantiinba dhalinyaro iyo waayeelba alxamdulilah shukri lilah anagu waa fiicannahay idinkana waxaan ilaahay idinka rajaynayaa sidaas iyo si lamid ah bashbash iyo barwaaqo cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad inuu ilaahay ina siiyo nabad iyo naqroobada ayaan ilaahay inooga baryaya isaga weyn oo waaxide dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada baan idin leeyahay inta haddaan ka gudbo maanta qisada aan inoo hayo qisadani waa qiso aad iyo aad maasha allah tabaaraka raxmaan u wanaagsan ahna kulligeen in aynu falkaas aynu samayno rag iyo dumarba qof kastoo islaamana looga baahan yahay inuu sameeyo sida tan ayay markaa walaashu inoogu soo gudbisay ilaahay khayr ha siiye waxay tiri walaashani waxaan daawadan jiray ama aan daawadaa labada channel ee kala ah luli youtube iyo Fatuma Muna channel labadaas ayaan ku xidhnaa labada channel ayaan ku xidhnaa gaar ahaan waxay usoo gudbinaysaa salaam qiimo badan Fatuma Muna channel aad bay inuu kusoo salaamaysaa walaashaasi Fatuma walaal insha allah labada channel baan ku xidhnaa bay tiri oo aan ku xidhanahay oo aan dhageystaa waxay tiri maalmaha kamid ah ayaa aniga qisadan ila soo koro igu soo maaragtay ila soo diristay qisada tan ila soo diristay maalmaha kamid ah ayay qisada tan ila soo diristay qisadan markii ila soo diristay bay tiri waxa aan sameeyay falka aan sameeyay iyo sidii ilaahay igu badbaadiyay insha Allah gadaal ayaynu ka sheegi doonaa marka walaashani waxay tiri waxaan ka shaqeynayay meel baan ka shaqeynayay meesha aan ka shaqeynayay waxaan wada shaqeyn jiray bay tiri dad fara badan oo rag iyo dumarba leh rag iyo dumarkaas qaar waad ka garan kartaa marka meel shaqo ay jirto dee qof kasta waad la shaqeynaysaa kollegaagu nin buu noqon karaa gabadh buu noqon karaa waa meelba markaa waxay tiri la wada shaqeynayay bay ahayd waxay tiri shaqadaydii anigu waxaan ahaa qof firfircoon oo shaqada u dhega nugul oo maxay ahayday u maartay dhega fudud oo shaqadeeda aan habeenayo maalin ka habsaamin oo aan markaa shaqada ku jiro inteeda xitaa breega aan haysto waxaan ahaa qof aan isticmaalin waxa la yiraahdo telefoonka gabigiisaba meel baan iskaga xareeyaa meel baan iskaga ridaa marka aan ka baxo shaqada ayaan isticmaalaa shaqadeedii baa la wada jeclaaday bay tiri yani qofku experience ku leeyahay haddaad jaamacad ka soo baxdo oo aad shaqada tan jaamacad uga soo baxdo waxaa kaaga maaragtay khibrad badan qofka shaqadan kasoo shaqeeyay experience-ka u leh ee aan maxay tahay degree u haysanin ayaa kaaga maaragtay xitaa opportunity ahaan kaaga opportunity badan marka waxay tiri qof degree ma soo qaadanin jaamacadana ugama soo bixin laakiin qof howlkara baan ahaa dhexdu xidhan tahay aan waxba ka dayacanayn waxay tiri dadkaan u shaqaynaynay aad iyo aad bay jeclaadeen aad iyo aad bay iga heleen way soo dhaweyn jireen waa laygu riyaaqi jiray waxay tiri markaa waxaa igu kacay dadkii aan la shaqayn jiray ee rag iyo dumarba lahaa ayaa igu kacay waayo waxay tiri mar walba dee aniga dadka qofka ugu shaqada fiican le noqda mar walba aniga ugu horeeya shaqadii anigaa lay siinayaa shiftiyadii fiicnayd yacni qofku markuu dee on time yahay maalin qura habsaamin saacad kaliya habsaamin shaqadiisuu taagan yahay dadka aad u shaqaynaysaa ee dee supervisoradaada iyo manageradaadu il dheeraada bay ku yeelanayaan waxay tiri sidii asaanu ahaa oo anigu shaqadeydii dhexda ugu xidhnaa unbaaba laygu kacay naagtan yar maxay ahayday shaqadiiba qandaraaska ku qaadatay manageradii iyo supervisoradii inagu dirtay waa inaynu shaqo ka qabana waxay tiri riboodo beena baa layga qoraa waxaanan maxay tahay khalad aanan samaynin bay inta iyagu sameeyaan yidhaahdaan yadaa samaysay wayla ashkateeyaa wax raadka aan dhigaba way masaxaan bay tiri waxay tiri afkaygaasaan laba layga saartay waa laygaga badan yahay waa layga cilmi badan yahay shaqada dad dee wax usoo bartay baaba jooga laakiin kartidayda iyo experience-ka aan u leeyahay khibradda aan u leeyahay ayaan haddii laba idmaayo bay tiri aan ku jooga afkaygan laba liir saartay waa lay dabagalay waxay tiri maalmaha kamid a ayaa kuwii dabagelayay nin kamidi wuxuu damcay inuu haddaba si kale sidii ma iga adkaan waayeen si kale iga adkaan waayeen isoo gaari waayeen iyo qaban waayeen wuxuu damcay bay tiri inuu maaragtay yidhaahdo waxaan ahay
waxaan rabaa waan ku jecelahay waan ku caashaqay waxaan rabaa inaan sheekaysano inaad dee aan maxay ahaydeen halkaas dee aan markaa wuxuu rabaa inuu shaqadan iyo hawshan aan qabanayo iga barto bay tiri asxaan iyo jacayl kale maaha waan ku jecelahay inanay waan ku caashaqay waan ku rabaa dee inaan aynu xiriir gaara yeelano ayaan rabaa buu ku yidhi inantii markaa waa idan dee islaamka Soomaaliyeed waxay tiri war anigu xiriirkaa gaara ma rabe maxaan kaa caawin karaa waxaad u baahan tahay kale dee sidaa dadkaa shaqaalaha ah for the friends ka baynu nahay dee waan kuga caawin karaa waxaad dee u baahan tahay sheekadaasina way kasoo xidhantay waxay tiri waxay noqotay keligay iyo shaqaalihii aan wada shaqaynaynay oo dhan meeshaan ka shaqayno bay tiri waa meel iska cusbatal oo kale ah dadka waaweyn lagu xanaaneeyo marka maxay ahayday waxay tiri dadkii waaweynaa ee aan la joognay oo dhan ayaa jeclaaday heblaayo dhundhunkada jecel iyo markay aan usoo galo farxa qosla labadan dadkan ninkan iyo kooxdiisuna waxay rabaan naagtan meeshii ka qaaday in ay kaga takhalusiyaan oo ay eriyaan laga eriyo waxay tiri waxaa laygu diray manageradii baa loo gudbiyey riboodo beena supervisoradii baa loo gudbiyey riboodo beena waa lay dabagalay waa lay fiiriyey waa lay ilaaliyey dadkii baa lay diray dee maaragtay dadkii saraaisha igu hayay waxba waa laygu waayay bay tiri waxaa la wareystay dadkii aan u shaqaynayay ayaa la wareystay mid waliba wuxuu iga bixiyey ribood cajiiba ayuu iga bixiyeen oo ay leeyihiin waan jecel lahay shaqadeedaan jecel lahay waanu ka hela ilaahay ii sakhray bay tiri iyo dee kartidayda inantaasi waxay tiri halkaa sheekadu markay maraysay ee si kasta laygu kacay ayaa waxay tiri waxaan bariinsaday salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aan dee dad kaa badan iyo biyo kaa badaniba way ku hafiyaan baa layidhi waxay tiri dee halkaan istaag wax kasta raadkaan dhigaba way masaxaan bay tiri waxay tiri waxaan bariinsaday magacyada ilaahay 99 magac ee ilaahay iyo baan bariinsaday bay tiri maxay ahaydeen salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan bariinsaday bay tiri waxay tiri 15,000 intaan kari karo afka kama dhigo bay tiri 15,000 oo salliga nabiga iyo 15,000 oo asmaa'ullah magacyada ilaahay ayaan waxay tiri bariinsaday waan waday waxay tiri sidii aan u waday maalinba xarigay furaanba ilaahay wuu ka fashiliya xarigay xidhaanba baan leeyahay ilaahay wuu ka fashiliya xarigay xidhaanba ilaahay waa ka fashiliya ana afkaygaan 2 liiro saartay ma hadlo ma juuqo jaaq ma yiraahdo salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baan ilkaha gowsaha ku qabsaday dambe haye gowsaha dambe ku qabsaday bay tiri waxa bay tiri ilaahay qadaray horta in iyagii dab ka dhex qarxo iyagii ay isku kacaan iyaga laftirkoodii ilaa anigan difaaca adkaystay waanigan difaaca haystay ilaahay isiiyay hub aan ku dagaalamo waxay tiri ilaahay weyna waaxidkiyagii isku jeediyay iyagii ba ashkato midba midka kale kabta ka gooya midba midka kale dabka kabta ka gooya ashkata dabada isu suray la wada ashkateeyay ribooda laga soo qoray ashahaada waxay tiri loogu dhigay waxay tiri waa inta aniga la eegayo iyagana waa la eegaya aniga waa kuwa lay diray dee supervisoradii meesha joogay dadkii la shaqaynayay kale aan de kuwan dacwadda igu soo ogay ahayn waa tan lay daba dhigay la yiri bal gabadhan waxa laga soo qoray dee dacwad baa laga soo gudbiyay eego isha ku haya waxay tiri inta aniga isha laygu hayo iyagana isma oga isha lagu haya waa la eegay waxa la soo ogaaday waxa ay sheegayaan oo dhan inay been tahay ayaa la soo ogaaday waxay tiri supervisoradii baa dib iga degay manageradii baa dib iga degay shaqaalihii kale dib iga degay iyagii baa dib iga degay maxaan ku helay waxaas oo dhan salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo magacyada ilaahay 99 magaca ilaahay ayaan ku helay bay tiri arrintaa ayada ah aan ku kasbaday arrintaas waxaan ku kasbaday magacyada ilaahay iyo 99 magaca ilaahay iyo haddii allaba idmaayo maxay ahaydeen salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku kasbaday bay tiri waxay tiri waxaa dhacday in iyagii lagu kacay oo la dabagalay oo waxay tiri siday ahayd
riboodo kale noocaasa loogu soo wada gudbiyey oo fartay qaadaanba ay kharibantaa oo dadkii aan u shaqaynaynay naceen oo dadkii waxay tiri ku kaceen oo meeshii laga daadiyey shaqadii dhammayd ila shaqaynayeen ay rabeen aniga booska inay iga tuuraan iyagii in laga daadiyey ayaa dhacda bay tiri sidaasna waxay tiri ku bariinsaday saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan baan daawaday channelka Faaduma Almuna waan ka daawaday bay tiri inantani saliga nabiga qisooyin badan ay kasoo gudbisay calayhi salaatu wasalaam iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ee lagu faa'iiday sidaa darteed baan bariinsaday oo aan aad iyo aad u bariinsaday oo aan halkaa maaragtay saliga nabiga waxay tiri sidaydii baan u wadaa 15 kun 20 kun 10 kun waxay tiri aan magacyadii lahay aanan mar carabkayga aan uga qalalin marna aanay uga qalalin maxay ahayday uga qalalin saliga nabiga carabkayga uga qalalin waxay tiri asaasaan wadaa waan ku xididaystay shaqadii waa layga jecel yahay position fiican baan ka gaadhay oo layga siiyey waxay tiri kaale arag dadkii igu kacay ee shadaadinta ahaa ee aniga dee maaragtay i cunayay i hadhuurinayana ilaaha weyne waaxidka ah ayaa junuudiisi ku fasaxay junuudii ilaahay ayaa junuudiisi ku fasaxay sidaasay ku baaba'een ku distrogaroobeen anigu aan kaga weynay alxamdulilah shukri lilah marka waxaan idin leeyahay bay tiri walaalahayow saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam magacyada ilaahay waxay tiri bariinsada oo laasima oo isku ilaaliya oo isku xafida oo korkiina ku ilaaliya ubadkiina ku ilaaliya naftiina ku ilaaliya gurihiina ku ilaaliya wax kastoo idinla soo dirsa waxay tiri waa idinaga caabiyaya shaqadaas waxay tiri xididada ayaa lay saari lahaa way iska kay dhex arkeen shaqo wanaagayga ayay ku bukoodeen bay tiri inantaasi bimacnaa kalima marka insha Allah bidmillaahi kariim de meel kale ilaahay baaba inoo sheegay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay axaadiisteena ku qoran tahay maxay da quraankeena ku qoran tahay in maartay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay hub culimadeena inoo sheegtay culimadeena 24 hours inooga sheekaysa oo inoo sheegtay marka walaalahayow dhammaan aynu isku xafidno saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu isku xafidno magacyada ilaahay asmaa'ullah aynu isku xafidno insha Allah bidmillaahi kariim qisadan intaasaan noogu soo gudbinayaa bidmillaahi kariim intaynu mar dambe hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin sida ayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu